بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله وسلام عليكم سلام كبير والصحافة وقرأنا لكم كافي إلى وكسابسا على ذهب الجدي وعصوص عضو وهنا سلام وصحافة الله بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الدكتور شريف كصحافيات من بيان كمان مقابل العملية أنا جوات سيهايها حين تجميع دور الشعب في جمهورية الفدرالية الصومالية أحمد الدكتور كوات سوى فقسم قلب السديدات فرقدي سجوات قلب السجارات فرقدي الشمال حرف A وحن هل كان تعطينا إن عن وحبة إسكاب الدليل محمد شيخ عثمان جواري oo sidii aan horay ugu dhawaaqay loo balansan yahay in golaha la horkeeno maalintii sabtida ah ee taariikhdu ku beegan tahay 2018 haddaba anigoo ilaalinaya nidaamka dawliga ah iyo habsami socodka howlaha golaha shacabka waxaanu caddaynayaa arrimaha hoos ka xusan kow xeerhoosaadka golaha shacabka qodobkiisa 9aad farqadiisa 4aad wuxuu dhigayaa mooshinka xilka qaadista guddoomiyaha golaha shacabka waxaa laga doodayaa loona codaynayaa 10 cisho oo maalin shaqo gudahooda laga bilaabo taariikhda mooshinka la keenay golaha sidaa darteed mooshinka laga keenay guddoomiyaha waxaa golaha la horgeenayaa maalinta sabtida ah ee taariikhdu ku beegan tahay 2018 qodobka labaad sida sharcigu na farayo guddiga joogtada ah ee golaha shacabku wuxuu howlaha baarlamaanka sii wadaa ajendaha kalfadhiyada soo socdana dejiya marka xildhibaanada golaha fasax ku jiraan laakiin marka goluhu furan yahay ma laha wax saameyn sharci ah oo ay go'aan ku gaari karaan qodobka saddexaad guddoomiyaha mooshinka laga keenay sharciyan aan ku hadli karin magaca golaha shacabka inta arrinta guddoomiyaha go'aan laga gaari karo wabillahi tawfiiq intaas u ijaar wasaxaafadki waraaqihina waa siinayna تديروا